mas-uuliyiinta ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland ee xaruntoodu tahay magaalada Hargeysa oo warbaahinta kula hadlayay ayaa waxay ka digeen urur ay sheegeen inay wadaan isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaasna ay furayaan wado ay sheegeen inay mar kale qaranka ku ridi karto. waxay sidoo kale dhalinyarada ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland ay carabka ku adkeeyeen isla markaasna ay sheegeen dhalinyaro dhawaan u timiin ay la ciyaaraan xulka gobolka Awdal iyo waliba sidoo kale naadiga maaliyadda ee ka dhisan caasimadda Hargeysa oo ay sheegeen inay dabada ka wadeen ururo wada inay isdhexgalaan dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya. mas'uuliyiinta ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen in ay jiraan qorshayaal iyo mashaariic iyo barnaamijyo lagu mutaxaabinayo amba liddi ku ah qaranimada Soomaaliland kuwaas oo xambaarsan fikirkii ahaa midnimo iyo isku mid ahaanshaha Soomaalida waxaana fulinaya local NGOs laga leeyahay wadanka Soomaaliya ee aanu jaarka nahay waxaanay maxay ahaydey NGO-yadaasi amba mashaariicdaasi ay salka ku hayaan in maxay ahaydey la xoojiyo isku mid ahaanshihii iyo midnimadii ka dhaxaysay labada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanay ku soo dhex dhuumanayaan baahida wadanka taalashida shaqo abuuris iyo ganacsi iyo maxay ahaydey arrimo kale oo jira waxaana ugu dambeeyay mashruucii ugu dambeeyay maalintii dhalinyaradii reer Australia ee Soomaaliya ahayd ee wadanka timid kuwaas oo maxay ahaydey ajandahoodu ahaa in ay ku soo ciyaaraan Soomaaliya aanay soo maraan gobolada Soomaaliya oo dhan waxaanay yimaadeen Somaliland bay yimaadeen markii hore Boorami tageen haddana daraad waxay joogeen Hargeysa joogeen waxaanay magacay ku socdaan ay wadanka ku dhex joogaan waa Soomaaliya xagga Soomaaliya maaha waa Somaliland weeyaan cid kasto imanaysa wadanka oo hawl ku fulinaysa waa inay ku timaadaa magaca Somaliland waliba magaca Republic of Somaliland inuu inactiraafay waxaad ku garanaysaa inuu Ilaahay noo rooyahay nabadaynu haysano iyo saynu isku jecel lahay iyo saynu isku saamaxno iyo saynu danta dalkeena uga shaqeyno way nagu jirtaa muwaadinimo wanaagsan oo ma laha ummadda kale ee Soomaaliyeed tay nagu jirtaa inaga alxamdulillah wa shukrillah inta marka maanta aan ku sii adkeynaya waxa weeye in yar bay noo soo jirtaa ictiraafkeennii intaynu helayno biidnillaahi kariim inaynu iska ilaalino kubad baa layna la ciyaarayaa way mar walba waxay ku cilciliyeen dhalinyaradu inay isdhex gashaan u nimid dhalinyarada isdhex galaysaa miyaan ahayn kuwii la xasuuqay aabayaashood miyaan ahayn kuwii hooyayaashood iyo carruurtooda la baabi'iyey miyaan ahayn kuwii maxay ahaydey xabaalo wadareedku ka buuxaan dalka miyaan ahayn maanta waxaan halka ku qabanaynaa shir saxaafadeed kaasoo aan kusoo gudbinayno ururo badan oo sidii walaalkay ka dhawaajiyey halis ku ah qarannimada iyo jiritaanka Somaliland waxaan maanta si gaar ah halka uga hadlayaa urur la magac baxay Fursad Fund ururkaas oo ay asaasayaashiisu ahaayeen muwaadiniin reer Soomaaliya ah oo ugu horeeyo wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Mr. Caynte iyo wasiiradii hore ee arrimaha emergency-ga Soomaaliya ay ugu horeeyaan ayaa haatanna waxay ku sugan yihiin ama mashaariic loogu soo dhuumanayo dadkeena reer Somaliland ama dhalinyaradeenna ka wada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland waxay xafiisyo ku leeyihiin Boorame Hargeysa iyo dhammaan wadanka dhawaaqa dhalinyaradani ururka adkeynta qaranimada Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dhalinyaradaasi ay ka boqoleen caasimadda Hargeysa waxaana wararka imaatinkoodu la xiriiray inay Soomaaliya iyo Somaliland ay wadaan in mar kale la mideeyo dhalinyaradoodu uu soo baxay ka hor intii aanay iman dalka hase yeeshee taasi dhag jalaq looma siinin Sakariya Sudaysi Ariel TV Hargeysa